waxay ahayd habeen madow oo dabayluhu ay si tartiib ah u socdaan. Abdina wuxuu ku jiray safar uu uga imaanayay tuulada dhinaceeda. Markuu marayay meel baadiyo ah oo geedo yaryar iyo dhagaxyo waaweyn leh, taleefankiisii wuu damay, iftiinkiina gebi ahaanba ma jirin. Markuu meel dhexe marayay ayuu maqlay qof neefsanaya oo aad ugu dhow. Wuu istaagay wuxuuna eegay hareeraha, laakiin wax muuqda ma jirin. Wuu sii socday, markaasna neeftii mar kale ayay timaaday. Hadda waxay u muuqatay mid ka dambaysa dhabarkiisa. Yaa halkaas jooga ayuu ku dhawaaqay. Cidi kama jawaabin. Balse dhawaq kale ayaa kacay, dhagax si tartiib ah looga qaaday dhulka sidii qof cagihiisa ku socda oo isku dayaya inuusan sanqadh samayn. Abdi wadnihiisu wuu degdegayaa. Markuu gadaal u jeestay oo uu iftiin dayax madoobaadkii ka imaanayay eegay, wuxuu arkay hoos madow oo gaaban oo dhaqaaqaysa, laakiin aan lahayn qaab bani'aadam ama xoolo. Hooskii wuxuu istaagay kadibna wuxuu bilaabay inuu si degdeg ah u dhaqaaqo, isagoo sanad kasta dhawaanaya Abdi. Abdi wuxuu bilaabay inuu ordo, laakiin codka wax socda ayaa noqday mid si xawli ah u soo dhawaanaya oo ay raacayaan sida qof yar oo qosol hooseeya, qosol aan ahayn mid bini'aadam. Markuu gaadhay meel buur yar ah oo ay dadku ka sheekeeyaan in ay jiraan meelo lagu qaldo, hooskii madow wuu istaagay. Wuxuu istaagay geesta buurka, wuxuuna isu beddelay qiiq madow oo cirka u kacay, kadibna si lama filaan ah ayuu u lumay. Abdi subaxdii markuu dadkii u sheegay, waxay ku yiraahdeen, waxaad ka gudubtay ari wareega baadiyaha, halkaas habeenkii wax aan qof iyo xoolo midna ahayn ay socdaan. Taariikhdaas wixii ka dambeeyey, Abdi marnaba habeen dambe uma socon baadiyaha, mar kasta oo uu xasuustana wuu gariiraa.